waa tahay kusoo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada ee caawa laanta afka Soomaaliya idaacadda Voice of Oslo caawa waxaan kaga hadlaynaa guud ahaan sanadkan waxyaalihii la yaabka lahaa ee la soo maray gaar ahaan waxaan ka hadlaynaa arrimaha qaxootiga ee dalkan Norway iyo waliba waxaan ka hadli doonaa dhinaca shaqada maadaama dad far badan oo Soomaali ah ay yeeltooda ay sanadkan la sheegayo in xagga shaqada ay ku fiican yihiin oo markaasi wareegisada inta badan ay soo qoreen anaga markaasi qaar kamid ah ognahayba in iskuulaadka iyo meelaha kale ay aad uga shaqeeyaan haddaba maadaama shalayto qarax uu ka dhacay xoogan magaalada Muqdisho dad far badan ayaa ku dhintay dadkaasi inta madal xaristo inta dhaawacana ilaahay u booqdayo qaraxyaasna kullu way soo noqdeen laakiin waxaan rajeynayaa insha Allah ummadda Soomaaliya dhinac u soo jeestaan waliba gaar ahaan dowladda Soomaaliya iyo waliba ciidamada amniga inay markaasi nabadda ay sugaan ayaan ka rajeynaynaa hadaan waa tahay bal arrimaha Norway u soo laabanayna Norway dhacdooyin la yaab leh ayaa ka dhacay sanadka dhamaadkiisii iyo waliba bilowgiisii khudbadii wasaaraha waxaa ku jirtay in markaasi shaqada xoog la saaro iyo waliba in dadka is-cusuriyeynaya oo dadka lagula kacaya falalka cusurnimada in dhinac loo soo jeesto khudbad dheer ay jeediyay sanadkii hore Janaayo koodeedii ayadoo marka sanadkan khudbadeedii ay jeedin lahayd ay bedeshay oo markaasi la filayo in khudbadeeda ay u badnaadaan waxa loo yaqaano tababar boorandare oo ah iska warhaya oo waliba qof walba qofka kale uu ka warhaya ayay ciwaankeeda noqon doontaa khudbadeeda sanadkan kooda Janaayo ay ka jeedin doonto ay u jeedin doonto dadka Norwegian wadankan degan iyo waliba dadka ajnabiga ka Norway ku nool waa tahay khadka traffic waxa ku jiro aqoonyahan iyo waliba abaan iyo waliba nin runtii aad muxtarim uga ah dalka Norway aad loo yaqaan Maxamed Bashiir ayaa khadka traffic ku jiro kullay Maxamed Bashiir waxa uu degan yahay magaalada Holofoss oo caan ku yahay waana kullay nin abaan ah oo aad loo yaqaan oo waliba xagga suugaanta kullay aan ku riixayay laakiin dhinaca kalena waa mas'uul ka tirsan masaajidka Holofoss ku yaala isla xaafadda Holofoss Maxamed Bashiir kusoo dhawaada idaacadda Voice of Oslo gacan furna habeenkan caawa aad iyo aad baa mahadsantahay waa dhowahay maasanid bal arrimaha qaxootiga ku hormareenaa dalka Norway sanadihii u dambeeyay wala sanadkan u dambeeyay xagga qaxootiga soo galahayeen aad bay u gaabiyeen ayagoo markii bishii November bilowgeedii ay dhaheen wax qaxootiga dalka Norway ma soo galin haddaba bal waxaan weydiin lahaa dhinaca qaxootiga dadkii hore u joogay iyo waliba dadkii soo galahayay farqi u dhaxeeya bal sanadkan hadda bilowgiisii ilaa dhamaadkiisii oo aad kullay wax badan aad ka ogtahay soo dhow qaxootigu sida aad sheegtay waxa weeyaan hoos buu u dhacay 3 sano u dhameeyay waxaana keentay siyaasadda xukuumadda oo garabka midig ah oo arrimaha qaxootiga aad iyo aad cadaadis loo saaray garabka midig marka aan ku leenahayna waxa weeyaan waad garanaysaan waa xisbiga hadda talada haya ee hoyraha iyo xisbiga kale ee la shaqeeyo ee FRB-ga iyo wixii siyaasadda garabka midig hor raacsan siyaasadoodu waxay ahayd weligoodba siyaasad ka soo horjeeda soo galeetiga qaxootiga gaar ahaan dadka ka soo jeeda wadamada aan ahayn reer galbeedka taasi ayaa waxay keentay in maaragtay isbedel aad u weyn uu ku dhaco qaxootiga iyo arrimihiisii ay hoos u dhacdo waana siyaasadii xukuumadda oo sidii la rabay markii ay iska kaashadeen loo fuliyay sidaad ogtahay sanadkii 2015 waxaa soo galay qaxooti aad u fara badan 30 kun ku dhawaaday laakiin sanadihii ka dambeeyay xakameyn baa lagu sameeyay sanadba sanad ayuu isu sii dhiibayay waxayna siyaasadii ku soo koobeen hadda 2019 haddii aan kuu sheego tiradii qaxootiga ahayd ee soo gashay marka la isu geeyo oo qaxootinimo ku soo gashay waa 2130 qof ilaa 36 dadkaasi ilaa 480 kamid ah waxay u badan yihiin wadanka Syria gruubka lagaad oo ku xiga waxa weeye Turkida oo 335 ah waxa ku xiga Eritrea oo 183 ah waxa ku xiga dadka la yiraahdo status loss oo Falastiinta aan ahayn maaragtay dhul lahayn ama jinsiyad haysan oo 127 Soomaalida oo dadkii ugu farabadnaan jiray oo sanadaha qaar kood aad garanayso tirada leeyahay 30 qof ayaa ka soo galay
qaxootigii way rabaan inay waddanka soo galaan oo dadka soo galay waxaa ka mid ah sacuudi baa ku jira oo 6 qof ah waxaa ku jira maraykan waxaa ku jira hollandiis oo 1 qof ah maraykanku waa 8 swedish baa ku leeyahay 6 waxaa ku jira German 9 waxaa ku jira 2 Ingiriis ah dadkii way soo qaxayaan oo caalamkii waa laga soo qaxayaa baahidii way jirtaa laakiin xuduudihii oo xiran iyo siyaasadii xukuumadda oo aad iyo aad u adag ayaa jirta waxaa iyaduna dheer 3,000 in xukuumaddu ay qaatay siyaasad kaleeto oo dad qaxootiya baa jira oo dibadaha laga soo qaado waagii hore 1,000 bay ahaan jireen markaa waxay kordhiyeen tiradii qaxootiga ma garanaysa dibadaha laga soo qaadayo maadaama kuwii soo galayay ay yaraadeen marka sanadkan dadkii lagu talagalay qorshuhu wuxuu ahaa 900 oo reer Konga oo laga soo qaadayo Uganda 750 Suuriya oo laga soo qaadayo Lebanon iyo 250 oo Jordan laga soo qaadayo 500 oo Suudaanta koonfureed oo laga soo qaadayo Ethiopia 450 jinsiyado isku jira oo Liibiya iyo laga soo qaadayo wadamada galbeedka Afrika iyo 150 boos oo banaan oo aan loo magacaabin cid loo qoondayn waxa iyaguna ku jira 60 boos oo xag caafimaad dad loogu talagalay adduunka meeshay doontaan ha noqoto loo soo qaaday laakiin 60 kaasi waxay ka mid yihiin 3,000 oo qof marka waxaad moodaa hadiiba la isku soo daro dadka waddanka loogu talagalay inaanay 5,000 wixiiba aanay ka badanayn marka waad u jeedaa waddan ay soo gali jireen ilaa 30,000 oo qaxooti ah waxa soo galay dad tiradii ka yar runtiina waxay ku samaysay waddanka raad aad u weyn oo aan hadhow taaban doono waa gartay marka maxaa keenaya marka aslada adiga ahaan in uu yaraado maadaama ay laftooda ay sheegayaan sababtay u yaraadeen aysan weli ay la yaaban yihiin waxa keenaya waa mid waa siyaasadda xukuumadda meelihii ay ka soo geli jireen oo loo adkeeyey oo Itaaliya dadkii ka soo galayay oo Itaaliya iyo midowga Yurub aftaalayaal ay galeen ama ballama ay galeen Turkiga oo dadku uga soo galayeen waddanka la yiraahdo Greek oo iyaguna 2016 ay galeen siyaasad la yiraahdo hal ku bedelo oo haddii qof ka yimid Turki uu soo galo Greek in loo celiyo Turkiga laakiin dadka Suuriyiinta ah oo joogta waddanka la yiraahdo Syria in maaragtay wadamada midowga Yurub ay meelayaan marka meelihii dadku ay ka soo galayeen ayaa waxa lagu sameeyay xakamadeyn aad u adag xuduudaha waagi hore furan jiray aad baa loo xiray waana siyaasad wadamada reer galbeedka oo dhan muddadii u dambeysay xisbiyada garabka midiga ayaa aad maaragtay ugu awood sareeyay oo waxay isticmaaleen ololayaashoodiiba waxay ku isticmaaleen joojinta soo galoontiga yareynta qaxootiga iyagoo adeegsanaya xisbiyada siyaasadooda ay ku adag tahay in la ilaaliyo dhaqanka iyo taariikhda iyo xadaaradda reer Yurubiyaanka ah oo diin ku salaysan sida ay sheegayaan dabeedna shucuurtii dhagaha ay u raariciyeen runtiina wax lagu khalday ayay noqotay oo ma garanaysaa arrintaas taasay ku dhacday inay dadkii aad u yaraadaan tiradoodii waa gartay marka sababta keentay in kaamkii ay yaraadaan waddan gudihiis ka furnaa iyo shaqaalihii in la dhimo bal mar kale ku laabo adoo hadda ka hor noo sheegay maadaama dad fara badan ay aad u xiiseynayaan in kaamkii sababta u yaraadeen aysan la soconin maxaa keenaas leedahay in kaamkii la yareeyo oo aada loo xakameeyo iyo weliba dadkii oo markaasi meelo khaas ah la geenayay laba sababood baa kaamada xiritaankooda ka dameeyey midi waxay ahayd dadkii soo gelayay oo yaraaday waddanka waxaa ku olaa xeryo aad u waaweyn oo transit ah waxaa ku yaal xero weyn oo loogu talagalay dadku marka ay yimaadaan oo halkii tanuum ahaan jirtay loo bedelay imanka meesha la yiraahdo Marode xeradaas waa xero teendooyina oo la isku haysto habkay u dhisan tahay iyo nidaamkeeda laguna talagalay dadku 20 beri ka badan inaanay joogin xerihii marka maadaama dadkii soo gelayay ay yaraadeen oo xerihii transitka xeryahan qaarkood Ashlamon oo horey loo xiray xero Falsomon la yiraahdo anigu aan ka shaqeynayay oo 9 sano ka bacdi iyada la xiray xeryo badan oo aad u waaweyn baa la xiray iyo xeryo badan oo kuwii deganaanshaha laakiin waxay sameeyeen nidaam kaleeto oo ah 5 xero oo waaweyn oo la yiraahdo integrating motag oo loogu talagalay dadka halkii waagi hore xero ordinary inta la iska geeyo qofku ama iskool u tagi jiray oo activity ku jira laakiin xeryo waxa la sameeyay 5 ah mid waa la xiray tii oo soo mid kalena in la xiraan u malaynaya 3 meelood bay ka furan yihiin xeryahaas waa xeryo loogu talagalay qofka in tababar lagu siiyo subaxii uu shaqo maaragtay
nidaam la siiyo koorsooyina hay-ado yimaadaan ururo yimaadaan koorsooyin lagu bixiyo qofkii ay ku talagaleen inay dhistaan bayskiisa weli dadka aan fahamsan ahayn ayaa u badnaa xeryaha waxaa u badan dadka suuriyaanka dadka ah ee turkida iyo eritriinta markii dambena yamanta ayaa lagu daray jizyadihii loo malaynayay inay sharci heli doonaan la filayay waa la ogaa waayo sharcigu hadda bixintiisii kuma xira kiiskii qofkii waxay ku xireen jinsiyadda uu yahay iyo dadka la rabo iyo dadka aan la doonayn bay u kala saareen marka xeryahaas waa xeryo loogu talagalay dadka in lagu hayo lagu dhiso iyagoo bayskoodii dhisan yahay markaa kamuun qaato halkaana ay maaragtay integrarinkii iyo maaragtay luqadii iyo wax walba qofkii ay sahlan tahay ay bahalkiyaan laakiin waxa dhacay xeryahaas hoos u dhacay dee waxa ku hoos ugu dhacay suuqii shaqada waxa xeryuhu ay aad iyo aad ugu xiraayeen ma ahayn keliya shaqaalaha keliya qaybta caafimaadka ayaa ka furay iskooladii ayay ku xiraayeen waxay ku xiraayeen booliska naftigiisa iyo ammaanka qayb bay ka ahaayeen waxyaalo badan ayay maaragtay dad badan ayaa maaragtay qaxootiyada ku xiraa marka waxyaalihii oo dhan way soo yaraan ururada samafalka ah oo iyaguna xeryaha maaragtay frifili kaga shaqaynayay shaqooyinkii oo dhan markaa way soo yaraadeen xeryihii markii la xiray taasina waxay keentay dad badan ayaa dareemay hoos u dhacii qaxootiga soo gelayay inuu xagga suuqa shaqada uu dhaawac weyn u geysto oo weliba dad khibrad leh muddo shaqaynayay aqoon leh ay khibradda iyo aqoonta iyo wixii lahayn ay meesha ku burburaan oo haddii xitaa qaxootigu mar kale uu soo galo waxay noqonaysaa in markaa la ordo xeryo kale dib loo furo marka waa arrin ku keentay suuqa shaqadana dhaawac weyn dadkii dee soo keena waad aragtaa xeryihii way yaraadeen taasaa markaa u sababa waa gartay bal xagga shaqada aan wax kaa weydiiyey bal dadkii iyagu kaamun kasoo baxay sharciyada qaatay iyagu sidii la rabay shaqa ma u heleenna mise weli waxaa waaye shaqalaadis wey dadkii soo galay xukuumaddu markay dadku sharciga qaataan ee degmo la dejiyo waxaa boosaynta ku samaysta hay-adda la yidhaahdo indiyada oo ah maaragtay hay-adda dib u dejinta dadka ku samaysa oo integrerinka iyo arrimihiisa ka shaqaysa kamuunka ayay waxay ku siisaa wax la yidhahdo dhaqaale la yidhahdo tiliscood dhaqaalahaas waxa weeye ilaa xadaanadii carruurta qofku hadduu wen yahay faamilkii activitoodkoodii waxoodii laakiin kamuunayaashu waxay mar walba ku qasban yihiin dadkaas inay inta muddadoodu marka 2 sano oo introductionka wax la yidhahdo loogu talagalay in qofka kor loogu qaado introductionka uu ka faa'iidaysto uu qofkaasi markaa luqadiisii ku dhisto shaqo galo laakiin luqadii barto laakiin sida la soo saaray muddadii u dambeysay waxa aad iyo aad u liitay tiradii ka soo baxday introductionka oo luqadii la rabay imtixaanadii la rabay inay ku baasaan oo aan ku baasin integrerinkii oo sidii la rabay aan u dhaqangelin dadkii oo suuqii shaqada maaragtay maadaama luqadii iyo integrationkii waxyaalo badan oo hadda aad soo baxay oo maaragtay faquuqa iyo midabta koorka iyo cunsuriyeynta iyo waxyaalahaas oo dhan aad loo sheegay maadaama dadkii magacyo kale ay wataan oo aad jaaniskii la yiri way u yaraadeen marka waxaa dhacday dadkii suuqii shaqada sidii la rabay uma ay maaragtay dhicin taana waxaa loo aanaynayaa in ma garanaysaa foxon oblaarinadii iyo iskooladii dadku wax kusoo baranayeen iyo nidaamkii loo soo dhisayay oo aad u liitay sida uu sheegay wasiirka isdhexgalkuna waxa weeye hadda waxay ku samaynayaan dib u habayn oo dadkii la qiimaynayo waxbarashadooda in qofkii waxbartay iyo qofkii aan waxbaran aan meel la wada geyn oo dadka la kala saaro arrintaasna waxa ka dameeyey haddaan carabka ku dhigto wiil suuriyaan ah oo dhalinyaro ah oo annaga kaamkayaga soo maray markii dambena xeryo kale maray oo dugsi sare keligii sanad ku qaatay beribaad markii dambeetana jaamacadda caafimaadka ee oslo soo galay la kulmay wasiirka integrationka markii la arkay ninka dhalinyarada ah ee waktiga yar joogay haddana soo galay mediciinka jaamacadda wuxuu dalbaday bergen iyo oslo tan uu helay oo dhibca sarraysay marka wiilkaasa wuxuu kala hadlay siday u adag tahay dad aan iskool weligood soo dhigan iyo kuwa aqoon sare leh in la isla fariisiyo marka siyaasadda cusub ee sanadka cusub soo socota waxa weeye sida wasiirku sheegay in dadka waxbarashada sare leh muddo yar loo qabanayo oo levelkooda ay hore usii soconayaan dadka kaleetana loo qiimeynayo iskoolkooda iyo qofkaan wax qorin muddadana haddii ay macquul tahay dadka ilaa 3 sano looga dhigayo hadday baahidu ka saamaxdona 4 sano looga dhigayo marka caqabadaha ugu waaweyn waxa weeyaan oo shaqada hor taagan oo dadku sidii la rabay
luqadii looma baran sidii la rabay integrationka uma dhicin sidii la rabay shaqooyinkii uma bahalkeen marka waa siyaasad hadda xukuumadda u taal oo ka mid ah balaanka 2020 in kor loo qaado oo isbedel lagu sameeyo waa gartay dhinaca Soomaalida waxaa aad loo amaanayaa dhinaca shaqada maadaama dhinaca dukaamada iyo waliba dhinaca xaraamada baanhagaha iyo waliba qaybaha iskuulka ay ka shaqeeyaan taa marka adigu haddaad aragtay kolley qormooyin lagu soo qoraya wargeysyada qaar ka mid ah bal dhinaca shaqada Soomaalida way ka dhex muuqdaan waliba gaar ahaan xagga basaska iyo tagaasidana way wadaan waliba si gabay ahaan way ku shaqeeyaan xagga isbitaalada si kale ka shaqeeyaan marka ma isleedahay hadda dhinaca Soomaalida xagga shaqadeeda hadda ay la qabsanayaan sanadihii u dambeeyay markay Soomaali badan waddanka soo gashay Soomaalidu markeeda horeba horta waa dad shaqo oo dhaqan ahaan dhaqanka Soomaalidu waa dhaqan la shaqeeyo shaqadu mar walba waxa la yiraahdaa midna waa mid qofku wax ku soo galan oo mushaar ku qaato midna waa mushaar ku qaadan Soomaalidu waa dad marka la eego dib loogu noqdo Soomaaliya xoolo dhaqataa aroorta la wada kalaho oo xoolaha maaragtay inta xeelada laga sidaa lixda arooriyo la raaco qaar habeenkiina la soo hoydo dadkuna hawshu u kala qabsan tahay oo nolosha ay ku nool qaar waa beeraley bay ahaayeen oo sidaas oo kale iyaga tacabkooda la soo bixi jiray qaarna waxay ahaayeen dad ma garanaysaa warshado iyo wadanku warshado badan buu lahaa kalluumaysat buu lahaa marka ma jirin qof Soomaaliya oo waayeel iska amooyo oo caruurtiisu biilayso maaha dadku mujtamacaan horta mujtamac jiif ma ahayn waxaana ku tusaala laba mahmaahood oo midna tiraahdo ninkii seexda Saciid ibn Dhalay midna tiraahdo niman shaqaysan shahwa ka xaaran waxay kaloo Soomaaliya tiraahdaa oo kamid ah mahmaaheeda baahida badan in lagu naco iyo baryada badan marka mujtamac shaqo ah wadankan markii ay soo galeen waxa dhacday dad cusub qaxooti ku soo galay dhibaato ka soo qaxay dhibaato haysato luqadii aan aqoon waxay qaadanaysaa waqti qofku intuu sugnaad qorto shaqo raadiyo oo shaqadii galo shaqadana la iskama galo laakiin waxa jira haddana cadaadis ku furan oo aan dadka Soomaaliyeed ogeyn hore waan uga hadlay joornaalo lokaal waan ku qoray dadka Soomaaliyeed in lagu shaabadayo mashaqaystayaal waxay taqriirkii u dambeeyay soo qoreen 10kii Soomaaliya afar baa waxay yihiin ma garanaysaa qaata ma garanaysaa ama cayr ama social ku xiran ama 42% laakiin anu markaa runta sheego waxaan oran karaa tiradaasi inay tahay tira beena wadanka anigu muddadii u dambeysay shaqadeedii markay dhamaatay waqooyiga ayaanu shaqo tago joogaa waxaan maray oo tagay magaalada la yiraahdo Buudo dadka jooga oo dhan waa dad shaqeynaya waxaan tagay magaalo yar oo kale oo la yiraahdo Hamaroy iyadana dadku way wada ay la yiraahdo kommunahaasa way wada shaqeynayaan basaska waxa ugu badan ama tagaasida oo service de mujtamacu u baahan yahay oo ah shaqo adag oo la doonayo qofku inuu xilliyada dambe soo jeedo caqabado badan la kulmayaan Soomaali ayaa u badan oo isla markaa aad fiiriso ganacsigu aad buu muuqdaa laakiin Soomaalidu waxaanay lahayn laba mas'alo dad saxaafadda wadanka ku xiran oo u soo gudbiya ama iyagu gudbiya waxqabadkooda maaha tan labaadna cid u helan oo de Soomaalidu u soo taagan oo rabta inay tusto waxqabadkooda ama soo saarto jinsiyadaha kaleeto jinsiyada badan oo saaxiibo leh baa jira oo aad arkayso Pakistan oo kaleeto waxay leeyihiin ilaa xukuumadda ilaa baarlamaanka ayay waxay ku leeyihiin xiriir aad u adag oo xubno ugu jiraan xafladahooda lagala soo qayb galo madaxda sareeto aad ugu xiran markaad fiiriso xafladahooda iskool yar hadday furayaan ama wasiirkooda yimaado madaxda wadanku timaado laakiin Soomaalidu waxay mudaynayeen group gooni u taagan laakiin isbedel weyn oo muuqda baan ku sheegaya oo ah dhinac waxbarashada oo dhalinyaradii yaryaray maanta 20 jirka iyo 20 jirka ku soo galay wadanka ku dhashay ama 5 jir iyo 6 ku soo galay kulli hooy iskuul ayay badidooda wada dhigtaan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ama dumar Soomaaliyeed baa waxay qaateen heer sabagar baydar waxay qaateen oo aad ugu badan yihiin waxbarashada sare gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha jira 25 ilaa 35 waxa weeyaan waa group dhan oo af Norway ku hadla af Soomaaliga yaqaan baaran hagayaasha ka shaqeeya jaamacado sare ka baxay master ay qaarkood qaateen top meelo sare oo maamulka ay ka joogaan marka isbedelku uu imanayaa wuuna muuqdaa oo si kasta oo loo sheego maaragtay wax qoraxda lama dabooli karo laakiin Soomaalidu waxa weeyaan haddii caawa idinka saxaafadiinu martaan oo soo eegtaan
meheradaha dadka shaqeeya waxaad arkaysaa inay yihiin group aad u active ah laakiin markii ay kugu furan tahay caqabado kaleeto ama dad kaa horjooda ama aragtiyo kaleeto oo maaragtay xagga dhaqanka iyo xagga isdhexgalka oo kaleeto waxa weeyaan Soomaalidu waxaan aaminsanahay dadka ugu furfuran oo ugu dhexgal badan markaad fiiriso maanta maaragtay dadka waxaad arkaysaa meelaha la isugu yimaado meelaha cuntada lagu soo bandhigo maanta 70% Norwegigu cuntada sambusa la yiraahdo way yaqaan waayo waxay arkeen dad Soomaaliyeed meel ay kaga qayb qaateen marka Soomaalidu isbedel weyn bay la yimaadeen waxay yeesheen network waxay yeesheen asxaab waxay yeesheen dadku isdhexgaleen waxay yeesheen ardaydii isku ardayda ahaayeen oo maaragtay ay wada joogaan oo network fiicanaysan marka xagga shaqada Soomaalidu iyo mujtamac ahaanba isbedel weyn ayaa socda walaa meeshii la rabay la gaarin صح مثلا marka hadii idaacada voice of Oslo habeen soo gal lahayd in warbixinada idaacada ka baxay Soomaaliya gaar lahayd hadii xoog saar lahayn Soomaalida oo markaas ay ma gashan lahayn idaacada voice of Oslo idaacada voice of Oslo iyo idaacadaha kaleeto iyo cid kasto arrimaha Soomaaliyeed badanaysa in lagu xirnaado idinkuna xogta soo ururisaan waxyaalaha la inaga sheegayo meediyuhu ay sheegayaan laba loo kala saaro shaygii aan waxba ka jirin ee been ahna la beeniyo shaygii dhab ahna isbedel la sameeyo lana qaato in maaragtay laynagu samayn karo cambaarayn layna dhaleecayn karo waayo waxaa laga bartaa wax qofka mucaaradka kugu ah ama ceebtaada sheega haddii waxaad tahayna waad ka noqonaysaa oo waad sasaxaysaa haddaan jirina waad beeninaysaa laakiin haddaan gabanno oo madaxa qarsanno aad bay dhibaatada u badanaysaa marka dadka Soomaaliyeed inay ku xirmaan idaacadaha wararka u soo gudbiyaan kuwa wadankana ay ku soo xirmaan oo qof walba oo Soomaaliya galabtii markay maqribka tahay hadduu idaacada Norwegiga NRK maaragtay Dags Revianka u dhageysto wixii wadanka ka socda wuu la soconaya idaacadaha Soomaaliyeed waxa weeye dalkii iyo dadkii iyo luqadaadii iyo bulsho ahaanba way kugu xirayaan marka waa aad bay muhiim u tahay doorka aad haysaan in laga faa'iideysto waa master fursadda aan ka sii faa'iideysto warbixina waxaa jira ugu dambeeyay isbuucii ugu dambeeyay soo baxay dhinaca dawladda soo baxay haddii aan la qaybta UDI iyo booliskaba sharciyadii baasaboorka haddii aan lahayd in lacag lagu kordhiyay in macnaha maxay ahayd maadaama qoraalada maanta aan ka sameynay adigu aad ogtahay Facebook ku qornay marka bal ayadoo bal Soomaali bal dadka bal idaacad kaleysay bal u sheeg bal arrintaas u dulmar wadankan waxa weeye horta Norway sidiisaba waa wadan dawladdu waxeedu ay ku xiran yihiin cashuur waxyaalaha wadanku ku socdo dadku siday moodaan wadanku waa wadan batrool leh waa wadan kalluumaysi leh waa wadan maaragtay leh service oo siyaaxi ah laakiin haddana cashuurta waxa la yiraahdo iyo waxa laga qaado khidmada laga qaado adeegyada ayaa u koray waa ogtiin wadadii u dhameysay deganaanshihi baa lacaga iqaamadii baa lacaga baasaboorkii baa lacaga sharcigii weynaa baa lacaga baasaboorku markii hore wuxuu ahaa lacag aan u malinay 499 haddana waxa laga dhigay lacag 570 qofka weyn waa markii aad baasaboor Norwegia aad dalbanayso baasaboorkii yaraa caruurta oo ahaa 270 baan u malaynayaa isagana lacag 342 ayaa laga dhigay marka labadaba aad baa loo kordhiyay jinsiyadu iyadu lacag 3700 bay ahayd sideedii weeye laakiin waxa qoran oo dadku aad ay hadda ugu wareereen meel ay ku qoran tahay lacag 2700 lacagtaas waxa weeye qof jinsiyada haystay oo lagala noqday oo mar labaad dalbanaya marka maadaama uu hore u lahaa oo lagala noqday sicirkii hoose ka dhiman marka wax weyn weeye oo aad isugu bedelay taa baasaboorka inagoo dul taagan waxaan raacinayaa oo kale dadka Soomaaliyeed arrin aad dhibaato uga haysato oo ah baasaboorkii Soomaaliga ah iyo doonashadiisa baasaboorka Norwegiga 570 ayuu ku kacaa aad buu u jaban yahay marka loo eego qofka dakhligiisa ama noloshiisa waa wax qofku uu u diyaar garoobi karo waayo baasaboorkaagu sanadka hor intaanu dhicin inaad diyaarsato baasaboorka weyn waa 10 sano caruuraha inta hore oo yaryar yihiin waa 3 sano markay xoogaa joogaanna waa 5 sano marka horta waa dhaqaale weeye loo baahan yahay laakiin in loo kaydsado oo loo diyaar garo laakiin waxaan qiyaasaa marka baasaboorkii Soomaaliga ahaa loo dooranayo Belgium ama Jarmalka diyaarad loo sii raacayo loo soo raacayo baasaboorkii lacag yahay qofkii ama qaar hodeel ku degayaan wada Soomaalidu dad isku degan yihiin
kaas weeye dhibaatada ugu badan ee dadka Soomaaliyeed haysata horeyna runtii waxaan kala hadlay Ismaaciil Muxiidiin oo markaa Kenya joogay wasiyaasha Soomaaliyeed oo Toronham jooga oo isagoo madaxda Soomaaliyeed la kulmay arrinta inuu hordhigaan u sheegay uu sheegay uu hordhigay marka baasaboorada caqabada u weyn oo kale waxa weeyaan oo idinka saxaafadda ma rabaa dawladda iyo cidii ay gaarsiin kartaa bal la gaarsiiyo in dad badan baasaboorkii markay soo noqdeen loo soo diray magacii oo khaldan loo soo diray qaar sawirro dumar lagaga soo dajiyay ama gabar sawir in loogu soo dajiyay anuu gabar aan diray ayaa isniin tagtay waxa la yidhi hadda ma shaqaynayno waa la soo celiyay tigirkii baa ka xumaaday mid labaad baa ka dhacay waxay aaday Finland way ku soo weerartay markay soo noqotayna magaceedii oo sidii uu qoraa la qalday ayaa la soo qoray taas runtii waqti dheer baan gelinay oo anigaaba waxaan u qoray codsi UDA-da waxaan u sharxay magacan Soomaaliga in inta soo wax loo qoro oo Xaliimo ama Faadumo Fatima malaakiin iska magacii yahay runtii tigidadii baan raacinay sawirradii baan u diray ilaahay amarkiis runta haddaan sheego waxay noogu ogolaadeen sidii uu ahaa ayaa loogu ogolaaday baasaboorkii gabadha laakiin waxay arrin maaragtay dadaal iyo magaranaysaa la hadal iyo waqti dheer qaadatay marka dadku in baasaboorada loo saxo oo baasaboorka Norwejiga wuxuu yahayba hadduu qaldamo xitaa aad celiso markaba waa lagu soo bedelayaa hadalka ma jiro lacagtaadu ma dhimato laakiin baasaboorkan loo dhoofayo ee muddada dheer loo marayo ee meesha fog loo tegayo Oslo jaaliyad weyn baa joogta wasaaradda arrimaha dibadda inay keento qof manduub ah dadka waraaqaha ka qaada wadankii u dira dabeedna baasaboorada loo soo dira ama DHL ha loo soo saaro ama diyaaradaha soo saaro laakiin habkan maanta lagu hayo dadka Soomaaliyeed dhibaatay ku qabaan maalinood waxaan maqlay gabar guri gubtay hooyadu Belgium bay jirtay waxaan u maleynayaa inay baasaboor doonatay ma ugu laakiin caruur yar baa joogto gurigii maaragtay uu gubtay dhibaato waaweyn baa ka haysata dadka Soomaaliyeed baasaboorka Soomaaliga qaadashadiisa kan Norwejiga 500 iyo 700 qofku uu iska helaa haddii aad miisaaniyadaada wiiga ama bisha hoos u dhigto way kaaga go'aysaa lacag laakiin marka reer hooyo 5 caruur haysto Belgium ay aadayso caruurtii ay kaxaynayso halka ay sii rafaadayso wixiina qalad ka soo noqdaan baasaboorka Soomaaliga inuu dhowr kun oo karoon nagu tago waa arrin aad u xun dadka Norway joogo siyaasiyiinta Soomaalida ahna waxaan leeyahay dadka Soomaalida haddii aad matalaysaan oo kolba doorashada xilligeeda dadka la arkaa doorashada ka hor lama yaqaan cid matasha Soomaalida 2,000 iyo waxay sugayaan 23 mise 22 marka dadku ha kula xisaabtamaan siyaasiyiinta dadka ay isu sharaxaya qadiyadaha iyaga khusaya looma baahna arrin Soomaaliya taal inuu siyaasi Norway jooga nagala hadlo wasiiradan la soo dhaweynaya wax noo tari maayaan madaxdan la horordaya loo tari maayaan qadiyadaha dhibaatada ku haya dadka Soomaaliyeed Norway dhexdeeda waa in laga hadlo qadiyadahaas xalna loo helo waana qadiyad haddii si sharciya dawladda loo hordhigo laga laaban karo kiiskaas oo dadku hadday si cad looga doodo dhibaatada ay ku hayso in baasaboor qofku uu ku tago 5,000 oo karoon dadka Norwejiga baa yeeleen xitaa hadday ogaadaan ama baarlamaanku waa gartay maxaa ku jawaab marka in baasaboorada Soomaaliga loo soo wareejiyo xagga Norway oo hadday bixin karto UDA ay bixisabo UDA baasaboor wadan kale siday ku bixisaa way adag tahay baraksiis ahaan sax oo macluumaadkiisa iyo information waayo ujeedada baasaboorkan laga leeyahay hadda wax weyn ma aha waxa way qofkii la oran jiray soo caday baa laga rabaa inuu Soomaali yahay in la cadeeyo baasaboorkan qofku kuma dhoofay malafkiisu baa la dhaxgeliyaa sax marka dawladda Norway de baasaboorkaas ma geli karto qofkan iyadu waxay rabtaa inuu safaaradiisi wax cadayna kala yimaado ma fahamtay marka safaarada wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa laga rabaa inay keento siyaasad tan ka fudud laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waa ogtiin aga kuma fadhido dawladdu 4 sano markay timaado waxay imanaysaa dawlad kale wasaaradii iyo wasiirkii wixii way kacayaan laakiin anu taa waxaan dhiilaa dawladda Norway iyo baarlamaankeeda in dib loogu celiyo oo qofka Soomaaliga ah inuu Soomaali yahay wax cadayn kara oo badan ayaa jira Soomaalinimada marka inta la raadiyo oo dadkan loo naxariisto oo yeel caruur haysata iskool ay u dhigtaan inay u tagto Belgium baasaboor u tagto loo doonto adduunka ma jiro wadan baasaboor inta uu ku tago aan ka ahayn dadka Soomaaliyeed ee Norway degan ee Europe degan صح واضح arrin xanuunkeeda leh oo qof kasta oo Soomaali ah ay aad u dhibayso anigu ilaahay uu iga fakiyay oo baasaboor Norwegian haysta laakiin ilaahay baan ku dhaartay anigu haddaan ahaan lahaa dadka mudaharaad baan baarlamaanka hortiisa ka samayn lahaa
haddii laygu xiri lahaa inaan basaboor belgium ka doo anigu carruur afara jiidaayo hooyada keligeedana waa dhibaato codkeedana haddaynan lagu hadlin oo siyaasigu matelin oo waxgarad ku bedelin oo aqoon-yahan ku bedelin oo culimadu matelin dadka soomaaliyeed markaas soomaalinimada iyo matelideedi waxay noqonaysaa wax iska baaba macnaha halkaas ay ka faa'iidaysta badanaa waxaa jira markii wasiir maadoo kaleete waxaa la weydiiyaa su-aalo aan munaasab ahayn in shirkaasi ama booqashaas uu dad soomaalida uu soo booqday in la weydiiyo aysan munaasab ku ahayn in la weydiiyo ayay dadka badan xooga saaraan halkii ay xooga saari lahaayeen waxyaalaha iyaga anfacaya marka maxaa kula talinaya dadkan maalin walba ama isbuuc walbaba soo dhaweynaya wasiir ama xildhibaan gudaha magaalada Oslo anigu horta weliga xildhibaan ma soo dhaweyn wasiirna ma soo dhaweyn siyaasina lama kulmin sax Soomaaliya markaan tagin lama kulmin siyaasi mana arag mana aqaan dawladda dadka ku jira qof aanu isku galaas ahayn oo ardaydii hore abaanu isnaqaan oo aan saaxiibtinimadayadii ku wada xiriiro sax oo meelo badan kala jooga laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay wasiirkan lagu soo dhaweynayo Oslo ee la horboodayo ee kharashka badani ku baxayo ee lacagtu ku baxayso ee hogaalka la kiraynayo anuu ma garan horta kharashkana meeshu ka yimaado ujeedku wuxuu yahay waxa loo ordayo waxa u baahan carruuraha Soomaaliyeed baa u baahan lookaalo la isugu keeno afka ay ku bartaan waxa u baahan hooyooyinka Soomaaliyeed odayaasha waayeelka meel ay isugu yimaadaan waxay u baahan tahay lacagtan in lagu furo xafiis arrimo bulsho oo dadka Soomaaliyeed yimaadaan oo qof Soomaali fadhiyo oo dadku u yimaadaan oo istifsaarka iyo wixii ay u baahan yihiin soo weydiistaan waxay u baahan yihiin xafiis yar oo naaf qof Soomaali oo la geeyo bideel kasta oo dadka Soomaaliyeed foomamka u buuxiyo caawina oo ay Soomaalidu iska soo xusho tirado qofkaasi halka aan noo tago waxay u baahan yihiin dad arrimaha bulshada ugu orda waxay u baahan yihiin dadka ururada samafalka ah ee Soomaaliyeed dad fiican baa jira oo runtii caawa laba urur baan Oslo ku aqaan urur waxa la yiraahdaa face to face gabar Ibraahiyo la yiraahdo ayaa wada gabar Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah ilaahay khayr siiyo wax badan ay dadka urur kalena hoob la yiraahdaa farxiyo iyo baayso gabdho la yiraahdo ayaa wada warsame oo aad iyo aad amraha ka hay'ad dalxiiska iyo dhaqdhaqaaqyo u sameeya labadaba kor soo bixiyaan ururadaas oo kale in lagu fangareeyo oo lagu bajgareeyo oo kharash kala geliyo wasiirka yimaadana loogu yimaado Norwayna waa in la weydiiyo wixii nagaga xiran dawladda Norway iyo wadanka oo cabasho ah hadduu wax ka qaban karana oo ka qabto haddii kalena uu dawladeeda loogu biyo midda kale dadka Soomaaliyeed reer Norway ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa reer Norway waxa weeye dad badan oo la xiriiro ayaa jira dad badan oo ay wada hadlaan durad gabar Soomaaliyeed baan wada hadlaynay oo tiri Xasan Cali Khayr ayaa soo wacay dabcan arrin bay ahayd sababta uu soo wacay uga mahad celinayay waana runteed oo qof aan run ku aqaan marka ra'iisul wasaaraynu ku leenahay Soomaaliya reer Norway hadaynu nahay wuuna yaqaan nolosheena uu og yahay Xasan Cali Khayr marka loo dhiibo qof uu kala xiriiro arrimaha Norway wadamada Suudaan ka mid tahay iyo Tunis waxay leeyihiin wasaarad la yiraahdo muqtaririinta oo dadka jaaliyadaha dibadda u leeyahay aynu yeelano xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda isku xira iyo jaaliyadaha iyo jaaliyadana Norway yuuna noqon wasiir kasta oo yimaada inta ugu dhow oo beeshiisa markay u hor ordayso waxa weeye wasiir lama soo dhaweyna nin baa nin reerkiisa soo dhaweynaya inta kalena way u camirtaa maalin galmudug baa loo shiraa maalin Puntland baa loo shiraa maalin waxa loo shiraa Hirshabelle aynu ka baxno danaheena iyo dadka Soomaaliyeed darahooda loo jeesto cidii noo timaadana qadiyadana haysta dhibaatooyinkana haysta waxay naga caawin karto dawladdu iyo isku xirkaas aan nagala xiriiraan oo waayo madaxday la kulmayaan khayra wixii aan u dhiibano markuu la kulmo wasiiradooda uu hordhigaya marka aan la xiriiro cidda darta ah ee arrimaheena matelaysa ayna ku mashquulin waxaan qiimo lahayn iyo siyaasadda Soomaaliya inagoo Norway dhex joog bal markaad fursadan kale aan ka faa'iideysto daatii mar hadalkaaga waxaa ku jirtay oo aad tiri dadku waa laba qaybood qayb shaqo u kala lahaa iyo qayb shaqo iska wax u qabta ku shaqeeya ama free village sida loo yaqaano idaacadda kaasoo hadlahayo radio voice of Oslo qaybteeda xarumeeda qayb ka mid ah waxa ay bilowday in ay bixiso dabaasha lacag la-aanta ah waxaana loogu talagalay dadka carruurta 13 jirka ah ilaa 25 jir يعني شلات جير ودريم كتا وقف قانقار أو نوين أهوية يولبا قبل يولبا له أيا العقل أنا ولبا لو كحين أيا قف العقل غمر ربو وحال رب كل ناس دوان كليه لكن مددي عن إعلامنا إلى هذا ضد الصومالي اسمه ديوان كلين تامر محاكو سوي لذي هن مدام صومالي فربان إذا أنت حافظة مرت السود
iyo weliba meelo kale ay gaartay qaarkood nala soo xiriiray laakiin aan soo xaadirin. soomaalidu intaanan gelin horta dabaashaan ka hadlaya Norway dhibaatooyinka ugu badan haysta dhalinyarada iskoolka iyo siyaasadda dawladdu aan meel laga gaarin waxa ka mid ah dabaasha. sanad walbana dad badan oo dhalinyaro ayaa dabaasha aawadeed u dhinta oo biyo ku hafta. dad Soomaaliyeed baana jira oo badan oo ku dhintay biyo iyo magaranaysa dabaal iyo waxyaalo caynkaas. dhalinyarada Soomaalida dabaashu waxa weeyaan diiniyan xadiis rasuulku calayhi salaatu wasalaam وليه علموا أولادكم السباحة والرماية والركوب الخير إن عرورة لبرو دباشة إيو فردفولك إيو سيدا وحلور إذا ما دام قفك لرمى إنو نفسي سأود دفاعه تاسوا من أمد الصوماليات عرورة إني بران أو دباشة بران أو قفا إذيان أو مركي دي كورس بلا شاء تهشنوا وابا وحكسي في عن لكن مركي كالتنا والدين توني عرورة دباشة بران أو علمه وماركتي ميل وكوبت بادو وهلو haddii aan kaaga soo hadlo arrintan maxaa loo imaanay laba mas'ale noqon kartaa mid haddaan ku wareejin waxa laga yaabaa dad badan ayaa gabdhaha dabaashooda iyo maaragtay xoogaa maaragtay diidan iyo habkay u dabaalanayaan taasina waxay u baahan tahay in la helo de meel gabdhaha cidda baraysa ay gabdha noqoto meel maaragtay loo banayo maalin go-an kharashkooda loo bixiyo galab go-an waana la helaa waxyaalahaas laakiin muddo waxaan ka shaqaynaya anigu informationka sanado badan waxa ugu weyn oo dhibaatada haysta dadka Soomaaliyeed qorama ajaanibka badidooda nidaamka wax la soo qoro ee Norway taqaanay wax la soo dejiyo aad looma yaqaan waxa laga yaabaa warqad qofku inuu akhriyo dhaafo inuu mid weydiiyo yiraahdo maxay inuu yiraahdo waa kuwa xulo dabaal sheegay laakiin marka waxay ku fiican tahay arrintaas oo kale marka la wado in la xiriiro masaajidka dadka ku xiran hooyooyinka active-ka waalidiinta active-ka dad ay bulshadu ku kalsoon tahay nidaamka Soomaalidu wax isku gaarsiisaa waa nidaamka maaragtay waxa la yiri maxaa la yiri صح marka hadii qofku uu maaragtay nidaamka soo geliyo dadka u sheego fariin faro maqaayadaheena xitaa inaynu ka dhigano meelo iclaanada oo af Soomaaliya lagu soo dejiyo maqaayadaha Soomaalida weli kuma arag maqaayadaha in laga sameeyo meel lagu soo dejiyo wixii macluumaad oo qofka maqaayada jooga loo sheego la yiraahdo warbixintan waxa weeye caruurta Soomaaliyeed ay u socotaa ama wixii arrimaha Soomaalida khuseeyaba laakiin taas aan ka dhaxgalay badanaa markii soo dejiyo qaar baa xanaaqo oo fujiya ama jahjaha waqadaha oo ay dhibayso kuwa ay dhibayso dib male laakiin waxa weeye adigu hadafkaagu waxa weeye horta dadka sidaan kuu sheegay in afka wax lagu gaarsiiyo aad mid kale mashaariicdaas oo kale markay tahay xitaa shirkadda tareedada iclaanada meel la geliyaa jira waad ku samaysan kartaa kharash yar baa gala Facebook baa maanta jiro aad la isu bahalkiyo dad waxa jira Soomaalidu aad ugu xiran tahay oo aad loo suuqa marka way jiraan sababo kale way dhici karaan oo qofkan wada baa la dhigi karaa inuu lacag ku cunayo waa waxyaalo jira baa kamid ah ma faham صح qofkan waa ayo baa dhici karta oo waxyaalo badan oo dhibaato ah baa jira marka dad Soomaaliyeed waxaan leeyahay wax kasta oo fursad u ah caruurta Soomaaliyeed aabbo wuxuu doonaa hadii danaado hooyadu wuxuu doonaa u danaado laakiin ilmuhu waxa uu xaq u leeyahay inuu dadkiisa Soomaaliyeed wax la qaybsado wixii loo soo helo Soomaalinimo inuu ku qaato qofka mashruuca fulinayana anigu waxaan jeclahay hadii xitaa dadka qaarkood uu si kale u arko inuu yiraahdo war kharashka anaga idin keenine meel soo helooda idinku oo meel aad ku dabaalaneysaan la imaado oo lacagti markaa laga bixiyo oo maaragtay loo shugo in la raadiyo wax sidii wax ku hirgalaan dadkii isu fahmo madmadowga la isaga saaro qofka mashruucan soo helay ee projectigooda naftigiisu waa inuu maaragtay yahay qof furfuran oo u jajaban si kasta oo wixii inay ku fulaan ay noqonayso lana fahamsiyo dadka mashruuca keenaya bulshadu siday tahay iyo habka wax lagu fahamsiin karo marka taas waxa weeye qofka mashruuca wada laga rabaa inuu dadkii ka gado wixii uu waday aad ugu dambeyntii sanadkan maadaama dhibaato badan xaggii Soomaaliya iyo Afrika ay ka dhaceen dad badan oo madax ayaa dhintay sanadkan waxaa dhintay Allah naxariistay injineer soo qarax u dhintay waxaa la dilay hodan aaneeye sanadkan maadaama dhib ku dhamaaday nin baa isdilay waddanka Norway oo gabadha boqorka qabay qarax baa dhacay hadda bulsho ka dhacay sanadka dambe saadaashaada tii Ilaahay waa gooni laakiin sanadka dambe maxaa rajaynaysaa halka u dambeeyo intaana sanadkan ma ogol horta dadkan hadda sanadkan Soomaaliyeed la dilay ayaa 3 qof taabanaya صح sanadkan waxa la dilay 3 qof oo mujtamaca Soomaaliyeed qiimo weyn u lahaa saddexda qofna
muddo yar un dadku ay barteen laakiin qof walba waxqabadkiisa iyo kartidiisa iyo dadnimadiisa ayaa lagu bartay saddexdaa qof mid waa injineer yariisow oo ahaa nin wasiirna soo qabtay duqii magaalada muqdisho iyo guddoomiyaha gobolka banaadirna ahaa ninkaasi nin wuxuu ahaa runtii 65 buu dhashay nin muddadii u dambeysay siyaasadda aada uga soo muuqday buu ahaa laakiin ninkaasi wuxuu ahaa nin isbeddel aan lagu aqoon siyaasiyiinta soomaaliyeed la yimi oo ahayd soomaalinimo waxqabad iyo inay ka go-an tahay inuu ka leexdo nidaamkii hore oo dadka soomaaliyeed ay caadaysteen ee ninku markii lasoo doorto uu noqdo nin beeshiisa iyo reerkiisa ku xiran taas darteed ayuuna u dhintay maadaama uu ahaa nin wax qabanaya nin soomaalinimo raba ninay ka go-an tahay waxqabad ninay ka go-an tahay horumarin muddadiisiina way ka muuqataa magaalada muqdisho horumarku gabadha labaadna hodan laalaye gabar soomaaliyeed oo iyadoo yar waddanka ka tagtay 7 jir ah Canada tagtay aragtay waddankeeda waxa laga qorayo iyo waxa caalamka ka qorayo ka dhididay markaas samaysatay integration TV af Ingiriisi ku hadla soo gudbiya xaaladda Soomaaliya ee dhabta ee wajiga qurxoon ee Soomaaliya muddo sanada ah ayay waxay ku tagtay waddanka oo dhan magaalo ka tagtay dhalinyarada Soomaaliyeed ugu tagtay deegaan kasta Hargeysa Berbera Muqdisho Laascaanood oo deegaankeeda runtii ah laakiin meel kasta oo dad Soomaaliyeed si xuduud la'aan sawiradeeda iyo YouTube-yadeeda ayaa ka arkaysa iyadoo dhalinyaradii Soomaaliyeed Muqdisho la joogta la sheekaysanaysa xilli aanay afka aad u aqoon oo afku ku adkaa laakiin afkii ay baratay ilaa markii dambena ay u soo wareegtay si Kismaayo ku guursatay waa qiso runtii iyada iyo yariisow geeridooduba waxay ku dhammaadeen weji aad foolxun laakiin waxaa ka weyn waxa ay ka tageen taariikhda waad ogtahay qofku hadduu qabqabla yahay dhiigii cab yahay hadduu dhinto sanado iyo bilo buu dhaafaa waa la iska soo ilaawaa laakiin iyagu taariikhda iyo xusuusta ummadda Soomaaliyeed duguneed gabadha u dambaysay waxay ahayd alman ninkii la oran jiray aabaheed wuxuu ahaa ninkii iyada oo Soomaaliya dadku ka cararayo qoryo la isku wato dhiig daadanayo caruuraha darbijiifka uudiyay ee bixiyay halku dhigi ahaa dhig qoriga hooqaliga ninkaas waxaa dilay cid aan la garanayn haddii la eegana waxa loo dilay way muuqataa wixii uu waday baa wuxuu waxbarasho wuxuu ahaa horumarin xilli muqdisho ay aad u dhibaataysnayd dhinaca labaadna wuxuu gabadhaasi hooyadeed hay'ad samafal bay sii waday walaasheed iyaduna samafal ayaa marka saddexdaa qofba waxay ahaayeen 3 qof oo mujtamaca Soomaaliyeed ku leh miisaan weyn geeridooduna ay tahay mid ummadda Soomaaliyeed taabatay laakiin qof walbaaba taariikhda wuxuu kaga tegay faro ayuu kaga tegay taariikhdu aad fara kaga tagtaana waxa weeye waa adigii oo nool oo weli sii nool tan 2000 iyo maxaad filaysaa horta qaraxyadu magaalada Muqdisho ayay u badan yihiin inta qarax ka dhacayna waad garanaysaa tirana way beeshay laakiin waxa weeye qaraxyada Muqdisho dib ma u dhigi karaan mase waa maya Muqdisho waxa weeyaan waa magaalo dadkeena Soomaaliyeed aad been uga liidanaa warbaahinta iyo iclaanka dibadda walow ay jiraan dhalinyaro maanta af carabiga wax ku qorto wax badan gaarsiiyey dad waxa jira sawirro qurxoon soo buujiyey dad waxa jiray ma garanaysaay aad u soo saara Muqdisho horta mowqif istiraatiiji ay ku taal waa halbowlaha ummadda Soomaaliyeed waa xudunta ummadda Soomaaliyeed waa magaalada kaliya qof kasta oo yimaada uu shaqo ku heli karo aad wasiir ku noqon karto aad gudoomiye baarlamaan noqon karto aad madaxweyne noqon karto aad taliye ciidan noqon karto wax alla wixii aad rabto magaalada Muqdisho aad ganacsana ku noqon karto horta Soomaaliya iyo Muqdisho marka la yiraahdo Muqdisho waxaan ugu dhacayaan Soomaaliya matasha magaalada Muqdisho haddii ay burburto lagu kala yaaco dad baa yiraahda caasimada haddii laga raro waa lagu kala tagay Muqdisho iyo dadka ku nool magaaladuna waa magaalada Soomaaliya ugu wanaagsan dadkeeduna waa dadka Soomaaliya ugu wanaagsan 30 sano dagaal ku socda xabadi ku socda la burburinaya way dhismaysaa maanta anigu Muqdisho arinteeda markaan arkay suugaan yar baan ka tiriyay runtii aan rabo dadka Soomaaliyeed inaan la wadaago oo Muqdisho aan kaga jawaabayo intaanan u gelin rajadeeda 2020 kuwa dheeraan maayo waxaan u rajaynayaa sideedii hore inay ahayd ilaahay qaraxa ka daayo laakiin
wax kasta oo lagu sameeyo iyo si kasta oo loo qarxiyo iyo wax kasta oo la dilo muqdisho waad aragtay wadadii soobe sida loo dhisay meel kasta oo la burburiyo maalinka ka bacdi dameeto waa la dhisaa xaaladeedu waa xaalada masjid al-aqsa iyo falastiin oo kale laakiin muqdisho mar aan maanta afkeeda ku hadlaayay waxaan idhi idinku miinada idhiga dhiigayga qubo ha tago dhulkiiyo ciidaba ha maro dhashayda diloo jarjara markay boqol iga dhintaan kun baan dhalayaa markaa muqdisho marka haddii horta malaayiin laga dilo dib bay u dhalaysaa dhashayda diloo jarjara markay boqol iga dhintaan kun baan dhalayaa markaa dhismaha dumiyo tirtira markaasaan dhidbayaa haddana taalooyinkaad shalay dhacdeen waa aniga dhigooda helay dhammaanba waa aniga ragabay iskoolla ayaan dhistaa qur-aan iyo saynis dhiga dhaqaale anaa xukumo technology igama dhumin dhexdaydana waxaa camiran safaarado dhumucda weyn daashiga waqay ma gabo soomaali dhamme anay dhaftayda ku jiibsadaan midkii dhabaandhiya midkii dhagraan dugtaa xildhibaan sharaf ugu dhuraa dhan oo dhereg baan dhahaa dhaxalka ummaddaana oo mar kale ma kala dhuro wada dhasho dhammaan waa ii siman yihiin ummadda soomaaliyeed muqdisho waa magaalo ay u siman yihiin waa magaalo si kastoo dhibaato ugu dhacdo ka soo kabata waa magaalo kan xumeeya hagaajisa kuwii dadka ku dilaayay ee ku qarxinayay ayaa ku dhex nool maqaalkan maanta qoray bay ku jirtaa guryahooday dhex joogaan qaar baa ku jooga guryo lagu hayaa waad ogtihiin kuwaa jagooyin haya xilal saray hayaan magaalo waxa weeye aan aqoon qofka maaragtay inay la xifalaantanto magaalooyinka kaleeto ninkii qof ka dilo waad ogtahay haddii lasoo qabto qaar baa dheelaya inu gubna oo jarjaro muqdisho marka waxa weeye 2020 way kasii fiicnaanaysaa way sii dhismaysaa maanta waxay haystaa dad usoo gurbanaya waxay noolayd xilli aanay saaxiib lahayn cid kale lahayn loo gurman laga yaaco dadku ka kaxay xabad labada dhinac isu taagayn maanta waxa weeye ambalaasya u jooga dhallinyaradeedu iyo dhakhaatiir ka soo baxartay baa joogta jaamacadii baa laga baxaa bangiyadii baa shaqaynaya technologygii waa kaas iyadaa sheegayso mobilka lacagta dhag la isugu siiraya transportkii baa yooga badii baa camiran magaalo marka hanqaraarac wey hanqaraaracuna luguma dhufiyo 2020kana soomaaliya iyo iyadoo dhan ayaa inta kasii fiicnaanaysa kuwa dhiigga wada ee wax daadinaya unbaa ku daalayo gacmaha kaga daalaya إن شاء الله هذا الإدمو نبض بالواقع راكت إن شاء الله رجين إن شاء الله وقتي عاون لقات كل يوم هذا عنا يا سنة كان ضمانة يعني إلهي خير سنة دي كان ضمانة أنا إلهي بالواقع خير فربنا نقول إن شاء الله هذا نقول صراحة محمد بشير هم بقول سلام طيب ومدة الصومال ميل كيس بيجوكتا وحان ورجينا إنه سنة كسنة كيس يكون جاران قول يو مدنمو وحنا لا جماعة الله يسقبصدو وقبيلة دا يو هلا tago gaar ahaan inta reer Norway ha ogaadaan inay iyagu ehel yihiin isku wadan yihiin dan ka dhaxayso caruurahooda wadankooda nool yihiin mustaqbalkooduna uu isku xiran yahay oo inta meesha la joogo inta joogta inay isku dan tahay Soomaaliya maanta waxa weeye kuwa Ingiriiska ka yimi iyo kuwa Yurub ka yimi kaleeto iyo kuwa meel kale ka yimi sidaas un bay noqonaysaa mustaqbalka sida caruuraheenu ay isu kala gurayaan marka dadka reer Norway waxaan leeyahay midnimo ogaada propaganda iyo been iyo dacaayad iyo wixii aan jirina ka leexda dantiina u jeesto مع سن أدبا وسلام يا قرب ما كنا السلام عليكم بوصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وطهي كاسي وحو أها محمد بشير أبان صوماليات قراء صوماليات يوليبا نين إساق وحبين كأه مسجد كويالان حافظة أما مجالة هرفص أي أخذ تلفي ورماهي إساق وجوغا وقوية وده كان نوروي أدبا وسلام يا برنامجكي بلسانة كان كسو أرلنا عن نوروي قيبتي سكوان halkaas aynu joogto waa aftax midnimo oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabaday